dadaalka ay wadaan mas'uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale horumarinta hanaanka maamulka maaliyadeed ee dalka ayaa horseeday in uu yimaado kobaca dhanka dhaqaalaha. warbixin arintaasi ku saabsan waxaa diyaariyay oo qoray Cabdulaahi Ruush waxaan inoo aqrinaya waryahayga Cabdirashiid Nuur Ibraahim. dardargelinta kordhinta dakhliga dalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa dowladan halkudhig u ah si taasi looga dhabeeyo ayaa wasiirka maaliyadda iyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi waxa ay maalmahan kormeero isdaba joog ah ay ku sameeyeen ilaha dhaqaalaha dalka gaar ahaan dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo uu heliyo wasiir ku-xigeenka wasaaraddaasi Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow iyo qaar ka mid ah howlwadeenada ayaa kormeero ku tagay dekedda magaalada Muqdisho iyagoona u kuurgalay sida ay u socoto hawsha ku aadan dejinta badeecadaha iyo aruurinta canshuuraha dalka. mas'uuliyiinta ayaa sheegay inay kormeerkooda uu ku qotomo dhiirigelinta shaqaalaha iyo ilaalinta ammaanada dalka iyo dadka Soomaaliyeed waxayna intaasi raaciyeen in si qoto dheer ugu kuurgalayeen qaabka shaqaalaha ay u shaqeeyaan iyo sida ay canshuuraha u qaadaan. wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda intii ay joogeen halkaasi waxa ay la kulmeen shaqaalaha dekedda waxayna kala hadleen arrimo muhiim ah oo badan in la tayeeyo hawsha ka socota dekedda magaalada Muqdisho iyagoona sheegay inay dowladda xuquuqda shaqaalaha ay joogteen doonto si gaar ahna loo qiimeyn doono dadka waqtiga dheeriga shaqeeyo. ugu dambeyntii ku dhiirigeliyeen shaqaalaha in ay u dulqaataan duruufaha dalka ka jira iyo dakhliga dowladda oo yar. madaxda sarsare ee ka socota wasaaradda maaliyadda oo horkacayo wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka waxayna sidoo kale kormeer howleed ay ku tageen qaybta canshuuraha ee garoonka Aadan Cadde ayagoona kulamo la yeeshay madaxda iyo shaqaalaha waaxdaasi waxaana shaqaalaha looga baahan yahay in ay ka soo dhalaalaan waajibaadkooda qaran isla markaana xuquuqdooda loo dhameystiri doono. waaxda furdada ee garoonka Aadan Cadde ayaa dhawaan maamul cusub loo sameeyay iyadoona madaxda cusub ay sheegeen in maalintii ay soo xareeyaan qaybtaasi $70,000 oo dollarka Mareykanka halka maamulkii horena ay keeni jireen lacag ku dhow $30,000 ilaa $40,000 oo dollarka Mareykanka. wasiir Beyle ayaa sheegay dakhliga ka soo xaroodo garoonka iyo dekedda ay gaarayso $90,000 oo dollarka Mareykanka halka ay ka soo xaroon jireen $10,000 taasi oo ku timid dadaalka dabagalka iyo la dagaalanka musuqmaasuqa oo ay ku guda jirto xukuumadda. sidoo kale goobaha ay kormeereen ayaa waxaa ka mid ah xarunta hoggaanka ilaalada canshuuraha ee ciidanka booliska Soomaaliyeed taasi oo loogu talagalay in ilaalada canshuuraha dalka meelaha laga soo aruuriyo waxayna ujeedkan u ahaa sidii loo dardargelin lahaa canshuuraha. mas'uuliyiinta ayaa waxaa ku soo dhaweeyay xaruntaasi taliyaha hoggaanka ilaalada ee canshuurta ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeye guute Cabdullaahi Xasan Bariise iyo saraakiil ka tirsan oo ciidanka waa uga warbixiyay howlaha ay hayaan iyo halka ay marayso. iyadoona wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow ayaa sheegay in loo baahan yahay in la xoojiyo qaabka loo aruurinayo canshuuraha waxayna dowladda Soomaaliya ka go'an sidii wadankan loo gaarsiin lahaa horumar wanaagsan taasina waxaa lagu gaari karaa in aan xil iska saarno canshuuraha si wanaagsan loo qaado waa mid kaliya ee dalkan horumar gaarsiin karto. wasiirka maaliyadda ee dowladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa isna kula dardaarmay ciidanka ilaalada canshuuraha inay shaqadooda si wanaagsan u gutaan lana shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda shaqaalahooda taasi oo la doonayo in shaqadu ay noqoto mid qurxoon dalkana horumarkiisa qayb muhiim ay ka qaadan karto aruurinta canshuuraha. dhawaan ay ahayd markii wasiirka maaliyadda uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay sameyn doonto qorshe canshuuraha loogu soo aruurinayo shacabka Soomaaliyeed sigoona sheegay in shacabka Soomaaliyeed ayagoo qanacsan laga soo qaadi doono canshuurta isla markaana dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay in ay cadeyso lacagahaasi dadweynaha laga soo aruurinayo halka ay ku baxday. mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda ayaa maalmahan dadaallo xoogan ugu jiro sidii loo kabcin lahaa dhaqaalaha wadanka iyo sidii dadka Soomaaliyeed loogu baraarujin lahaa inay bixiyaan canshuuraadka waayo canshuurta oo si wanaagsan loo bixiyaa waxa ay dabooli kartaa baahida xukuumadda. Cabdirashiid Nuur Ibraahim, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.